warar aynu ka helayno deegaanka Boocame ee gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland ay goordhaweed la wareegeen saldhigii deegaankaasi oo ciidamada Puntland ay hore gacanta ugu hayeen. Saldhigaasi oo lagu magacaabo Boocame ayaa waxa gacanta ku hayay ciidamo ka tirsan kuwa maamul goboleedka Puntland kuwaasi oo ay kala wareegeen ciidamo kale oo taabacsan kuwa Somaliland oo iyaguna hore ugu tirsanaa ciidamada maamul goboleedka Puntland. Ciidamadan maanta la wareegay saldhiga Boocame ayaa waxay calanka Somaliland ka taageen gudaha saldhigaasi waxaana horkacay ciidamadaasi sida la saraakiil caan ka ah deegaanka maamul goboleedka Puntland. Wararka aanu helayno ayaa waxay intaasi ku sii darayaan in ciidamada la wareegay saldhigaasi ay xukuumadda Somaliland ku soo xoojisay ciidamo kale iyo gaadiid dagaal si ay u kordhiyaan awoodda ciidamada la wareegay saldhigaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxaya maamul goboleedka Puntland oo ku aadan saldhigaasi ay kala wareegeen ciidamada Somaliland oo uu kala dhaxeeyo dagaal dhanka xuduudaha ah.